xiisadda ka alowsan bariga dhexe ayaa weli soo taraysa iyadoo wax xal laga gaarin dagaalkii dhexmaray xulafada Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in inay lacagtay awooddii Iiraan ee rogaal celinta dagaalka. Waxaa soo tarahaya khasaaraha diyaaradaha dalka Mareykanka ee ka dhashay dagaalkii Iiraan uu la galay, ayagoo hadda la shaaciyay ilaa iyo 42 diyaaradood inay ku waayeen ama ay ku waxyeeloobeen intii uu dagaalku socday. diyaaradahaas oo ku jiraan diyaarahan duuliyaha ee loo yaqaano MQ-9 Reaper. dalka Pakistan ayaa weli ku dadaalaya sidii xal loo gaari lahaa xiisadda ka alowsan bariga dhexe, soo isla markaa dhexdhexaadinaya Mareykanka iyo Pakistan. wadahadallo dadban ayaa la sheegayaa inay weli ay ka dhaxayaan labada dhinac, isla markaana wax heshiisa aan weli la gaarin, waxaana markasta laga yaabaa in dib loogu laabto dagaalkii ka socday bariga dhexe.